maanta oo ay tahay taariikhda 20-ka bisha Maajo 2017 waxaa guul weyn noo ah in aan qaadayno imtixaankii guud ee shahaadiga ahaa ee heerka labaad ama dugsiga sare. imtixaanka waxaa u fariisan doonto tiro gaaraysa 23,000. waxaa lagu geli doonaa 77 xarumood oo dalkoo idil ah laga soo bilaabo Gaalkacyo ilaa iyo Kismaayo. waxaa ka shaqaynaya imtixaanka 77 qofood oo kormeerayaal ah, 77 qofood oo kaaliyayaal ah. waxaa ka shaqaynaya ilaa iyo 1,400 oo ilaaliyayaal imtixaanka ah. sidoo kale waxaa ka shaqaynaya imtixaanka dad gaaraya 1,000 qofood oo ilaalinaya amniga iyo dad ka tirsan wasaaradda waxbarashada oo imtixaanka howlihiisa ka shaqaynaya. waxaa guul weyn noo ah maanta, sharafna noo ah in uu noo joogo ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre, oo aan uga faa'iideysanayno fursaddan in imtixaankii guud ee waxbarashada heerka labaad ama dugsiga sare uu noo daahfuro ama uu noo fasaxo inuu noo furmo.